sheekooyinka qur-aanka waxaa qoray maxamed axmed jaadal mawla oo ka mid ahaa aqoon-yahanada xafiiska manaahijta ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee dalka masar bartamihii qarnigii 20aad waxaa soomaaliyeeyey halkanna idinkaga soo jeedin doonaa iyadoo qayb ah inta lagu jiro bisha ramadaan ee barakaysan axmed faarax cali idaaja kuna soo dhowaada qaybtii koowaad. sheekadii ilmo aadan hanaankii nolosha ayaa isbilay. waxaa isa soo taray jiritaankii kolkii ay xaawi taran bilowday. ubaxyadii ugu horreeyey ayaa beerta aadanaha ka soo iftiimay, waxayna farxad iyo reerrayn geliyeen iyada iyo saygeeda aadan. jacayl bay kala bateen markay arkeen warasadoodii oo arlada ku faafaysa, waddooyinkeeda ordaysa, arsaaqda eebbana ka durduuranaysa. nin carruurtiisa aad ugu naxariista ayuu ahaa. xaawana kii ay dhashaba way ku farxaysay, inkastoo ay dhibaato iyo xanuun badani foosha ka soo gaarayeen. taasise waxay ahayd canaab markaas oo kale hooyo kasta la soo gudboonaata, waase canaab iyo kaar ay durbadiiba ka soo kabato oo ay isla markiiba ilowdo, waxaana halkooda loo geliyaa naxariis ay u hayso ubaxa dhinaceeda jiifa amaba ay dhabta ku haysato. 2 jeer ayay xaawi mataanaysay. mar waxay umushay qaabiil iyo gabar ku mataansan, markii labaadna haabiil iyo mataantiisii. si wacan oo wanaagsan bay labadii waalid carruurta ah ugu fidiyeen daryeel iyo xanaano aan kala go' lahayn, ilaa ay koreen oo dhiiggii dhallinyaronimadu uu oogadoodii ka soo ifbaxay. labadii gabdhood waxay yeesheen dabeecadihii iyo astaamihii dumarka lagu yiqiin. wiilashiina dhulka ayay ku dhaqaaqeen si ay ugala soo baxaan arsaaqda uu eebbe dhexdeeda dhigay. haabiil wuxuu noqday nin dhulka tabcada oo beerey ah, qaabiilna wuxuu u leexday dhaqashada xoolaha. noloshii ayaa labadoodiiba u toostay. qoyskii barakaysnaa ee reer aadanna waxaa dhammidood hareeyey nabad iyo xasillooni ay ku barwaaqoobeen. qaabiil iyo haabiil waxay noqdeen barbaaro, waxayna dhab isaga garteen dareenkii ragannimo. midkood waliba wuxuu u hanqaltaagay inuu yeesho oori uu ku dego oo uu weheshado. hankaas macaan ayay nafta ku maaweelin jireen, siday uga dhabayn lahaayeenna albaab walba way u garaaceen. waa hore ayuu eebbe xigmaddiisa ku go'aamiyey arlada dusheeda dadka in lagu shirrabo, inay hantidu korodho, warasaduna ay tiro badato. wuxuu eebbe qadaray dadku inay kala kaan noqdaan, kuna kala gedisnaadaan dabeecadaha, nooca iyo hannaanka abuurka, tirada, barwaaqada iyo basanbaaska. sidaa darteed ayaa aabbihii aadanaha wuxuu eebbe ugu waxyooday labadiisa barbaar inuu u kala guuriyo 2 gabdhood ee ay walaalaha yihiin, midkood walbana uu u dhiso gabadha midka kale ku mataansanayd. waxaase jira oo dabeecadaha aadanaha astaan muuq dheer looga dhigay hunguri iyo damac. rabidda naftooda kuwa ka adkaada ee caqligooda hawaawigooda ku xakameeya, kuwaas ayaa ah kuwa uu eebbe adduun iyo aakhiraba ku karaameeyo. ha yeeshee kuwa hawaawigooda u hoggaansama ee caqligoodu hagi waayo, kuwaasina waa kuwa howlgalkoodu dunida guudkeeda ku khasaaray, iyaga oo isu malaynaya inay wax wanaajinayaan. halkaabaa dabeecadaha aadanaha gundhigoodu yahay, waana isla meesha inta ifka la joogo dadku ku kala baxo ee ay qaarna ku guulaystaan, qaar kalena ku guuldarraystaan. aadan wuxuu inamadiisii u sheegay wixii loogu waxyooday ee guurkooda ku saabsanaa. qaabiil baase ka cadhooday oo warkii odaga ku gacan sayray. go'aankii aabbihii ayuu diiday, maxaa yeelay gabadha walaalkii loo dooray ayaa ka qurux badnayd tii isaga loo dooray. nacayb iyo xaasidnimo uu haabiil u qabo ayuu la hooyan waayey, lana harsan waayey. waxa uu saluugay qaybtii eebbe, wuxuuna jeclaystay gabadhii ku mataansanayd inay isaga afadiisa noqoto ee aysan afada walaalkii noqon. waa hore iyo waa dambaba quruxdu waxay weligeed ahayd duufaan xoog badan oo nafta aadanaha kolba dhinac ula dawaafta, marmarka qaarkoodna burbur iyo geeri u horseeda. quruxda ayaa sabab u ahayd khilaafka iyo nacaybka labadaas walaalaha ah kala dilay. quruxda ayaa ku wacnayd qaabiil inuu aabbihii ku caasiyoobo, go'aankiisana uu ku gacan sayro. aabba aadan ayay tala ku caddaatay. meel uu wax ka qabto ayuu garan waayey. waxaa la soo daristay xaajo ka diimoonayd oo iyadoo kale aanay markaa ka hor maskaxdiisa ku soo dhicin.
wuxuu ku mashquulay siduu isugu heli lahaa rabitaanka labadiisa wiil oo hirgala iyo nabad ay ku wada noolaadaan oo dhexdooda ka aslaxda. wuxuu sidaas ku jiraba kolkii dambe ayuu eebba ku hanuuniyey tala uu ku furdaamin karo halista xasilloonida qoyskiisa soo food saartay. wuxuu u soo jeediyey labadooduba inay eebba dartiis sadaqo u baxsadaan, dabadeedna kolba koodii laga aqbalaa uu gar u yeelan doono waxa uu jecel yahay ee uu rabo inuu helo. awr geeliisa ku jiray ayuu haabiil ku allabariyey, qaabiilna sarreen beertiisa ka soo go'ay. mid waliba inuu isagu liibaano ayuu filanayey, midka kalena uu ka fooro. maalintaa waxaa nasiibsaday halkaasna ay guuli ku raacday haabiil. allabarigiisii ayaa la aqbalay, walaalkiisna waa lagu diiday, maxaa yeelay taladii aabbihii ayuu u hoggaansami waayey, sadaqadii uu bixiyeyna kal iyo laab kama ahayn. maalintaas bay murugo oo idili qaabiil isugu timid. wuu rajo dhigay, damac, xaasidnimo iyo nacayb buu la googo'ay, dubaaqiina kala tegey. wuxuu ku tashaday inuu dhagar galo. walaalkii ayuu u goodiyey oo u dhaartay, kuna yidhi, waan ku dilayaa, maxaa yeelay ma kari karo inaan ifka wada joogno adiga oo raaxo ku nool iyo anigoo ciil iyo murugo i buuxiyeen. walaalku lama noqon karo aniga oo hoos ka gubanaya oo laabta dab iga shidmaayo iyo adiga oo ka shaadu qabowdahay. haabiil oo ka xun haadaanta uu walaalkii ka sii hoobanayo ayaa yidhi, waxaa kugu habboonayd meesha lagaaga yimid intaad garatid inaad wax ka qabatid oo dib u hagaajinta naftaada aad isku hawshid. dadka ka baqa oo keliya ayuunbuu eebbe wax ka aqbalaa. nin uu eebbihiis xoog iyo caqliba ugu deeqay ayuu haabiil ahaa. kuwa ammaanada xambaaray ee haddana ilaaliyey ayuu ka mid ahaa. kuwa xigmadda la siiyey ee haddana weyneeyey ayuu ku jiray. waxaa ugu daraa taabidda raallinimada eebbe. wuxuu aad ugu heelanaa baarinimada aabba iyo hooyo, qaybta rabbina raalli ayuu ku ahaa. wuxuu ogaa noloshu inay tahay wax idlaan doonta iyo raaxo wakhti kooban ku eg. wuxuu ka walwalsanaa xaasidnimada iyo nacaybku shiddada ay walaalkii ku hayaan. sidaa darteed ayuu kolba ula telin jiray, walaalnimada ka dhexaysana u dhowri jiray. wuxuu aaminsanaa awoodda eebbe, isaga ayuuna isku hallayn jiray. goodiga qaabiil dan uma uu geli jirin, kamana uu baqi jirin. wuxuuna ogaa inuu yahay xaasidnimo iyo caasinimo nin ay fara kulul ku hayaan. qorshaha eebbe ayuu isagu mar walba u hoggaansanaa. haba yaraatee wax xumaana walaalkii laabta uguma hayn, kumana hamayn inuu waxyeeleeyo. ilaah baa maalintii uu abuuray wanaagga ku abuuray, cabsidiisana ku hanuuniyey. dabadeed wuxuu haabiil tala iyo waana ula jeestay walaalkii. laga yaabee waa siduu islahaaye erayadiisu inay daawo u noqdaan oo qalbigiisa cudurka nacaybka ka sifeeyaan. wuxuu ku yidhi, walaalow waad habowsan tahay, waddadii toosnayd ayaad ka weecsan tahay. tashigaagu waa mid xaqa weydaarsan oo dembi baa kuugu sugan. waxaa kugu habboon oo mar kale kugu habboon inaad eebbe dembi dhaaf weydiisato, aadna ka noqoto baadinimada aad ku jirto. haddiise aad diiddo oo fulinta qorshahaaga aad weli ku sii indha adeegto, anigu markaas arrinta oo idil rabbi baan u daynayaa. dooni maayo inaan ku dhaco gaf iyo caasinimo eebbe. waxaan doonayaa dembiga arrintaa ka yimaada inaad keligaa dhabarka u ridato oo dadnaareedka aad ka mid noqoto, taasoo ah abaalmarinta u kaydsan kuwa daalimiinta ah. nacaybka iyo xaasidnimada qalbiga qaabiil ka shidmaya ayaa ahaa wax aan la damin karin oo xataa aanu xidhiirka walaaltooyo baktiin karin, jacaylka iyo naxariistuna aanay qaboojin karin. sidoo kale cabsida eebbe iyo dhowrista xuquuqda labada waalid ma ahayn kuwa xakamayn karay naf ku xukuman inay ku tilmaanaato tii ugu horraysay ee arlada dusheeda dembi ku gasha. saacad ka mida saacadaha xilliga wareega ayuu dembigii dhacay. gacanta walaalkii ayuu haabiil ku dhintay. wuxuu eersaday doqoniino, aqoon gaabni, jacayl dumar iyo hawaawiga aan la hor joogsan karin ee nafta. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين iftiinkii nolosha ayaa baktiyey dhiiggii baa oogadii haabiil ku qaboobay quruxdii bay isa sagootiyeen wuxuu ka maqnaaday meelihii ay aabbihii isku arki jireen nebi aadan ayaa kolkaa murugooday meel walba ayuu ku dhacay si uu raq iyo ruux haabiil u soo helo markaas buu qaabiil weydiiyey bal inuu walaalkii meel ku sheego wuxuu ugu jawaabay hadallo fudayd iyo xurmadarro ay ku dhan yihiin wuxuu ku yidhi ma ogi saa aniga xilna igama saarayn ilaaliyihiisana ma ahayne ha yeeshee aadan wuu gartay in wiilkiisii la dilay wuuna iska aamusay isagoo weliba qaba xanuunka uu la taaho aabba kasta oo curadkiisa ciidda afka loo geliyey isaga waxaa u dheeraa xanuun kale labadiisii gacnood ayay mididdii kale dishay wuxuu haabiil noqday ruuxii ugu horreeyey ee arlada dusheeda lagu dilo sidaa darteedna qaabiil wuxuu garan waayey sidii uu meydka walaalkii u asturi lahaa saab buu inta ku dhex riday dhabarka u ritay wareer baa ku dhacay laabta ayaa gubatay nacayb iyo dareenka jacaylka walaaltooyo ayaa naftiisa ku dhex dagaalamay jiifkii ayuu qaban waayey hoog iyo ba' iyo ceeb buu la dhuldhici waayey muddo dabadeed meydkii ayaa soo uray qaabiilna intuu ku dhibtooday ayuu culayskii sidi waayey wax uu yeelo iyo meeluu wax ka qabto ayuu garan waayey halkan markay arrintu marayso waxaa qasab ahayd inay naxariista eebba soo degto si loo dhowro maamuuska uu meydkaas daahirka ahi leeyahay iyo si dadka loogu sameeyo xeer ay mararkaas oo kale ku dhaqmaan sharafta aadan iyo dhashiisana loo joogteeyo sidoo kale waxaa qasab ahayd cashar adag in la siiyo gacankudhiiglahaas nacaybku laabtiisa buuxiyey qof ahaan isagu waxyiga eebbe ma mudna waa inuu tuke arday u noqdaa waa inay aqoontiisu ka yaraataa aqoonta shimbirkaas madow ee aan cidina maamuusin casharkaas xanuunka badan kadib waa inay shakhsiyaddiisu halkaa ku dhammaataa nolosha inta uga harsanna dulli iyo cadaab joogto ah uu ku idlaystaa wuxuu eebba soo diray 2 tuke way dagaalameen mid baa laga adkaaday oo la dilay kii wax dilay ayaa markaa gafuurkiisa god ku qoday oo meydka kii bakhtiyey ku aasay kolkaas buu qaabiil aad u qoomamooday wuu iska baroortay murugadii badnayd ayaa dabadeed waxay ka yeelsiisay hoogay oo ba'ay ma waxa tuka gartay baan garan waayey oo sidiisa oo kale walaalkay u asturi waayey فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين dhegaystayaal waxaa halkaa inoogu dhammaaday qaybtii koowaad ee sheekooyinka qur'aanka waa inoo bari iyo sheeko kale hadduu allaha ugu dala idmo